الحمد لله رب العالمين وبنا نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir taliyaha gobolka banaadir ee booliska iyo taliyaha gobolka banaadir ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka bahda saxaafadda dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amniga waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed waxaana guulaha amni ee maanta la haysto lagu gaaray wada shaqayn iyo garab istaag ee shacabka Soomaaliyeed siiyeen hay'adaha amniga waxaan hadda xog ku helnay in rag mas'uuliyiin hore ah iyo dad siyaasiyiin ah ay qorsheynayaan inay magaalada qalqal galiyaan isla markaana ay abaabulaan fala lagu boobayo hantida ganacsatada iyo fowdo laga abuurayo dalka iyadoo loogu dhex gabanayo rayidka laga yaabo inay qabaan cabasho dhab ah waxaan sidoo kale ka warhaynaa in maleeshiyaad hub loo qaybiyey si ay uga hor yimaadaan ciidamada ammaanka sugayo kadibna ay dhibaato loogu geysto shacabka iyo amniga guud ee dalka dawladda Soomaaliya ma aqbalayso in la carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida caasimadda guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda oo ku yimid dhiigga ciidanka Soomaaliyeed iyo canshuurta shacabka sidaa darteed waxaan soo dhawaynaynaa go'aanka maamulka gobolka banaadir ee gudoomiyaha gobolka banaadir halkan uu ka aqriyay ee la xiriira in si loo ilaaliyo amniga magaalada banaanbaxaas lagu qabto goob loo asteeyay ama uu asteeyay maamulka gobolka banaadir halkaas oo ah garoonka ciyaaraha injineer Yarisow ciidamada ammaanka waxaan farayaa inay ilaaliyaan amniga goobta dibadbaxa iyo shacabka ka qayb galaya sidoo kale ay ka hortagaan wax kasta oo khatar ku ah amniga lama ogolaan doono banaanbax lagu qabto meel ka baxsan goobta loo asteeyay oo ah xarunta ama garoonka ciyaaraha ee injineer Yarisow shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka isla markaana ay raacaan nidaamka loo sameeyay si dareenkooda ay ugu muujiyaan si nabad ah ama amni ah waxaan mar labaad shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa iyadoo oo la ogol yahay banaanbax salmi ah oo si nabad ah uu muwaadinka Soomaaliyeed uu ku cabiro dareenkiisa iyo wuxuu ka cabanayo waxaan diidanahay in loogu soo tabaraaco oo muwaadin wax rasmi ah ka cabanayay dad dan gaar ah leh inay ugu soo dhex dhuuntaan way waxaan ka digayno mar labaad waxaan ciidamada ammaanka ama ciidamada amniga Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa ka howlgala gobolka banaadir aan faraynaa in ay ilaaliyaan amniga shacabka isla markaana ay ka hortagaan wax walba oo qalqal ku keeni kara amniga Soomaaliya gaar ahaan caasimadda amnigeeda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu